horyaalka Ingiriiska ee Premier League waa uu soo gabagaboobay inkastoo ay markaa la difaacatay kooxda kubadda cagta Manchester City. su'aalaha isweydiinta mudan ee qabaan gebi ahaanba taageerayaasha kubadda cagta ee lacagaha ay kooxaha Premier League la siinayo ee 20 kooxood ee xil ciyaareedka waxaase la soo saaray isla liiska lacagta markaasi lacag ka badan 2.5 bilyan oo geni ayaa loo qaybiyay 20 kooxood ee horyaalka Premier League taasoo ay dakhli ka soo xarooday xuquuqda baahinta telefishinada xil ciyaareedka dhawaanta. Manchester City ayaa horyaalka ku guuleysatay waxaana la siiyay lacagta ugu badan waxayna qasnadeeda ku dhacaysaa 160 milyan oo geni oo kaliya horyaalka Premier League halka kooxdii ugu hooseysay miiska kala saraynta heerka labaad u noqotay loo shubay 100 milyan oo geni. Premier League si rasmi ah uma soo bandhigan tirooyinka ama cadadka lacagta la siiyay koox waliba laakiin waxa lagu soo saaraa qaacidada miiska kala saraynta iyo qaab xisaabeedka qaybinta marka la helo wadarta lacagta kooxaha la siinayo. dakhliga ka yimaada baahinta ayaa si isla eg loogu qaybiyaa kooxaha laakiin kulamada gudaha UK laga daawado halka lagu kala duwanaado baahinta kulamada dibadda iyo tartamada Liverpool iyo Chelsea oo soo dhac weyn ka yimid maadaama hoos u dhac weyn uu ku yimidna ay ka maqnaanayaan tartanka Champions League ayaa waxa ay lacagtoodu ka hooseynaysaa intii la siiyay xil ciyaareedka hore inkastoo ay lacag badan helayaan haddana Southampton Leeds United Leicester City heerka labaad u dhaadhaca ayaana ku qasbanaan doona in meesha ay ka saaraan ciyaartooy waaweyn sababtoo ah walacagdoonaya in mushaarkooda lagu jaangooyo in la sinmaan nolosha kooxaha heerka labaad ee Championshipka. Manchester ayaa lacagta helayso sanadka ka sii badnaan doonta inta markaasi aynu soo sheegnay waxaana loogu dari doonaa 4 milyan oo geni haddii ay tartanka faakaabka ku garaacaan Man United oo ay finalka Sabtida ku dagaalami doonaan Wembley Stadium. sidoo kale Manchester City ayaa haddii ay guuleysan Champions League finalka June 10 wada ciyaari doonaan Milan waxaa kale la siin doonaa 9 milyan geni taasoo wadarta lacagta sanadka Man City ka dhigaysa 270 milyan oo geni. Chelsea kaalinta 12aad horyaalka Premier League gabi ahaanba ay markaasi ku seegtay tartanka ama tartamada Yurub xilaareedka dambe waxa ka go'i doona ugu yaraan 70 milyan oo geni. lacagta sanadkii hore ay yeeshay halka Liverpool oo shanaad ku dhameysatay oo ka qayb galaysa Europa League 50 milyan oo geni ka hooseynaysa lacagta ay keeneen sanadkii hore arinta ayana waxay ka dhigan tahay in kooxaha Arsenal Manchester United Newcastle United dhaqaale ahaan sare u soo kaceen xil ciyaareedkana waxayna lacago badan ay ku heli doonaan oo soo bixitaanka tartanka Champions League. Manchester City 170 yeeshay Arsenal waa 167.8 Manchester United 165.5 Newcastle 163.4 Liverpool 161.2 Brighton 159 Aston Villa 156 Tottenham Spurs 154 Brentford 152 Fulham waxay lacag ahaan heshay 150.2 milyan geni. Crystal Palace ayaana sidoo kale heshay 148 milyan oo geni. Chelsea 145.8 milyan heshay. Wolves 143 West Ham 141 Bournemouth 139 sidoo kale Nottingham Forest 137 milyan oo geni. Everton waxay heshay 134.8 milyan oo geni. Leicester City 132.2 milyan oo geni ay heshay. Leeds waxay heshay 134 halka Southampton kaalinta 20aad waxay heshay 128.2 milyan oo geni.